magaaladan xarun ku meel gaar u ah koonfur galbeed ayaa soo martay marxalado kala duwan. dadka ayaa sida hadda ay wax u socdaan ku xasuusinaya taariikho aan wanaagsanayn oo deegaanka hore u soo maray. xaaladan hadda taagan oo ah jawi doorasho la isku diyaarinayo ayaa haddana ku lamaanan walwal dhanka amniga ah. xilli daafaha magaalada oo ciidamo fariisan u ah xilliyada qaar dagaalo ku dhex mara al-shabaab iyo ciidamada dawladda. waxaa saddexeeya oo soo raaca dadka inay ka cabsi qabaan xaalad dagaal xilli ciidamo muqdisho laga soo diray baydhabo ay soo gaareen. wasiirka amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed xasan maxamed xuseen ayaa dhawaan sheegay in ciidankan ay iyaga dalbadeen ogolaanshahoodana ay ku yimaadeen. laakiin guddiga amniga baarlamaanka koonfur galbeed lama dhacsana ciidankan la soo diray iyagoo ku sababeeyey in wax baarlamaanka go'aamin aan la samayn karin, sidoo kalena cawaaqib ay ka dhalanayso ciidankan haddii aan dib loo celin, sida uu sheegayo xildhibaan cabdishakuur buule. maabanan baahanayn oo roogan haani federaalka oo militariga haayan, haani federaalka oo nabasugidda haayan, haani nabasugidda oo koonfur galbeed haayan, haani booliiska cusub la raayay oo koonfur galbeed haayan, haani booliiska federaalka haayan oo gooniga haayan iyo dhan intaas ciidan ee isla roogan un ciidan banin baahanayn ciidan muqdisho baleysii beeleedka intii la roora la sheena uni la koyni la gol wasiir ay la kala wareegnoy maana ay la jeeynoy baarlamaanka hoo walba isku ogda baarlamaanka shan wasiir aniki la sheer gareey jari walba ciidamada hajee ogayti hadal dastuuri oo ini oo maamul goboleedka oo ciidamo iyo ansahiine baarlamaansho dhisinyi baarlamaanka han marna ini la xaqaada la kooy wal raale ka anama baarlamaanka South West ma in sheegay in xurriyada tiidin oo isin lahaytan la siin ku qaadi doorashadan waajibaad ay isin lahayn. bulshada magaalada oo ka walacsan dib u dhacyada badan waqtiga doorashada ku yimid iyo fargelinta la sheegayo inay dawladda ku hayso maamulka ayaa aad u taabatay hooyooyinka oo ka baqdin qaba in deegaanshadii 4 sano ee ay soo mareen laga burburiyo. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Baay Muraay Ibrahim Madeer iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada Xaawo Sokor Cali ayaa xaalad aan wanaagsanayn ku tilmaamay xaaladda Baydhabo ka taagan maalmahan. wali beesha caalamka aan sheegane walina nihaay faragelin qaawan marmee lama mee sadmee shacabkan oo aan teegan iniyo banaan bahan 24 sheegan wala dhibaatada ayo la kahay iniyo banaan baxita landiidiya teegan saacadun alilay lan kasam hadal korto afka issaar in neerod ya teegan walaagas ma weelana dadshana mihiini walaagas ma weelana dadshana mihiini beesha caalamka wali fadaanay Soomaali kulliye xukuumaha juhdiya galiidi waqti galiidi xoolo ku maqan inay faragelin degdeg ay hagil suubido fadaan systemkii may raayis may baqaraayne inuu isbedelaan iyo maragaan dad isbedel guraay isbedel may fad sugaanayo may raayda dadkan linga dan ay sugaanay ma sugaana qaab handada inay may raayis wadankan ku dhiyo faa'iidada lanka ari may raayis geek ma degdegaw may eedeedan kuna waana may raayis ku hayne hadii aan shacabka reer koonfur galbeed ini may raayis bayro dadka geek foodal kuridu ciidamo cusub la shaano ee may raayis ciidamo may buaheen amaan may baroogday nabasuuda roogdi booliska roogdi military roogdi ciidamo ama Soomaaliyeed ee shabaab wadanka dhama haysada meel markaas may raayis banaaw may raayis dadku roogle kuma hayno ma wal goonay mar saarnay shabaab ma loo gureeyo hay shalay goof guud dagaal ku dhiyay mugudisha may garin dagaal ku dhiyaas saas dadka ciidamo may nishaana oo wadanka gurmada may nishaana ciidamo nabadda may raayis qasoosh gurmada soo nishaana diyaarna meeyeen. madaxweynaha xilka iska casilay Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maalintii iscasilaadiisa sheegay in haddii qaabka isaga ku baxay ee culayska sii socda doorashada koonfur galbeed aysan suuragal noqon karin. wayna rajeeyeen inay doorasho nabad galaan, inay doorasho xaq galaan, doorasho dimuqraadi inay galaan, in kasto saartay in muuqato saartay la kawadiyo hanoo suuragal lahayn, laakiin haddana way rajeeyeen inay onayso faylan iyo aqliidiyo iyo diintiyo iyo dareentiyo ka shaqeeyaan in doorasho xaq ay dhiido. dawladda Soomaaliyeed waliba laha dadkan aan dhaxeeya maamulkana dhibaatooyinka sahay iyo wala isku kabitaanka baahini halku kaw ee halka la shaqeeyo dhammaan dadweynaha reer koonfur galbeed wali laha
dowladnimada meeliha taroogta ay reeday ku nahay baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed ayaa u baahan in laga badbaadiyo mawjadaha laga walwalsan yahay ee hadda ka socda sida uu Universal TV u sheegay wasiirkii hore ee gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi intay iska dhigaan waxyaabaha gaarka ah intay iska dhigaan ma aragtay culeysyada iyo breesharada kala jiro intay iska iloobaan inay u soo jeestaan danta guud maxaa dan u ah deegaankan maxaa dan u ah shacbiga maxaa horumarkeeda iyo amnigeeda sidee looga shaqayn karaa amnigeeda loo sugi karaa sidee dawladda federaalka loola shaqayn karaa oo wada shaqayn wanaagsan ay u dhaxmari kartaa inay arrimahaas maskaxdooda ayagoo ku haya inay doorashadaas tagaan oo ay markaasna doortaan ninkii ku habboonaa oo gaarsiin lahaa inta halkan ka kaxeeya meel ka sii fiican meesha ay maanta joogto gaarsiin lahaa oo ninka furi lahaa waddadan isku xirta runtii waddooyin badan baa xiran tan baydhabo iyo xamar isku xirta iyo tan kale oo ma aragtay baraawe iyo ilaa iyo xamar isku xirta laftigeeda isbaarooyin badan baa jira iyo jidgooyin badan oo lagu hayo shacbigan deegaanka koonfur galbeed oo runtii ay ka socon laadahay ganacsigooda iyo ma aragtay horumarkooda caqabad ku noqday marka muddana way soo jirtay maxaa ka mid ah maalan ka soo qaad hadda xamar marka laga tago jawhar loo socdo caqabad ma jirto jidkaas waa furan yahay oo ma jiro isbaaro ma jirto macnaa ganacsigii iyo shacbigii iyo si caadi ah bay isaga socdaan laakiin marka oo dhinacan la soo aado maxaa isbaarooyinka ay u yihiin ma aragtay taako oo ay meel walba u yaalaan maxaa shacbiga dhibaatadaas loogu hayaa marka waxyaabahaas oo dhan ayaa waajib ku ah inay xildhibaanada ka fikiraan cagajiidka ay ku socoto hanaanka doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ciidamada la keenay baydhabo iyo abaabulka hoose ee ka socda baydhabo waa kuwo keenaya rajo xumo haddii siyaasad ahaan sida ay wax u socdaan aan wax ka bedelin dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda hadda siyahayaasha ka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed Muxuddin Xusni TV-ga Universal baydhabo